halkaad inaga daawanaysaan waa saxafi film su'aal ah aad ka dheehataan ama ka daawataan barnaamijyada ugu dambeeya uguna xiisaha badan leh oo aynu kaga hadalno aktarada shirkadda Hollywood ee dalkaasi India filimada ka sameeya. Barnaamijkan waxa aynu ku soo qaadan doonaa Rani Mukherjee oo gabadha ilma adeerka yihiin Kajal Devgan ayaa waxay ka hadashay guurkeedii Aditya Chopra. Waxa ay sheegtay arooskaasi inuu ahaa aroos khudbasireed ah yeeshee waxa ay tiri waxyaabaha la yaab kale oo aan marna maskaxdeeda ka bixin waxay tahay markii aniga iyo aan isguursanaynay Aditya Chopra imise qofood ayaa xafladda arooska ka soo qayb galay maadaama xafladdaasi ay ahayd xaflad qarsoodi ah. waraysi gaar ah oo ay siisay TV-da dalkaasi India mid kamid ah ayaa su'aalo badan lagu weydiiyay waxaana kamid ahaa goormaad kulanteen, qaabkee ayuu xiriirkiina hadda yahay, imise qofood ayaa ka soo qayb galay xafladdii koowaad ee khudbasirada ahayd ee adiga iyo Aditya Chopra aad isku guursateen. waxay tiri Aditya Chopra marar badan ayaan la kulmay bay tiri dad badanna waxa ay igu sheekeyn jireen in haddii uu Rani film u dhiibo ay filinkaasi flop ka dhigi doonto balse asagu fikirkaasi ma aaminsanayn ee waxa uu niyadda ku hayay in Rani ay wax jili karto oo aan ahay qof taalantida. ugu dambeynna waxaa dhacday bay tiri in aan wada kulanno oo aan ka wada hadalno samaynta filinkii Mujidosti Kringe. filinkaasi kadib waxa ay tiri aniga iyo Aditya Chopra waan isu soo dhawaanay inkastoo marar badan saxaafaddu ay sawiradeeda inta qaadatay ay sheegeen in uu xiriir naga dhaxeeyo. ugu dambeyn waxa ay tiri khudbasiro lama oran karo ee waxa ay tiri arooskeena ka hor waxa uu ka bixiyay waxa loo yaqaan boorsamiinta ama trailer in aniga asaga aan isguursan rabno. guurkeennii waxa aan filayay bay tiri inuu noqon doono guur caalami ah oo dad badan ay ka soo qayb gali doonaan ha yeeshee waxa uu ii sheegay bay tiri iguna qanciyay in ay dad madaxa imaan doonaan arooskooda. ugu dambeyn xafladii arooska waxaa ka soo qayb galay bay tiri 12 qofood oo kaliya waxa ayna arintaasi ugu noqotay lama filaan meel aan ka noqdona ma aanan joogin bay tiri ee waa aan isaga ogolaaday. Aditya Chopra shakhsi ahaantiisa ma xuma bay tiri waa nin wanaagsan marar badan ayaan kaftanaa marna waan aflagaadeeyaa laakiin aflagaadadu ma ahan bay tiri mid aan asaga ugula jeeday ee waa jacayl anigii asaga naga dhaxeeya. agtaradan ayaa waxay ka hadashay khudbasiradii gabadha caanka ah ee tirishada Anushka Sharma ayadoo ka hadlaysa waxa ay tiri waxa lagu qanciyay in 12 qofood iyo ka badan ba ay ka qayb gali doonaan waana ay yeeshay ugu dambeynna waa ay guursatay. aniga tayda waxa ka qayb galay 12 qofood markii uu hor yimaado Aditya Chopra waa meelaha aan ka xanaaqo ama carada igu abuura in aan canaanta bay tiri ninkayga oo ah ninaan aad u jeclahay. gabar ayaa noo joogtay bay tiri gabadheedana aad ayaan u jeclahay waxaana jeclahay gabadheeda in ay mustaqbalka noqoto gabar atrisha oo ka soo bixi karta dhanka jiliinka. waxay tiri waxa aabba oo Aditya Chopra oo ah mulkiilayaasha shirkadaha ugu wanaagsan ee filimada ka soo saara dalka India gaar ahaan shirkadda Hollywood. haddaba Rani dabeecad ahaan marka la eego waxa lagu tiriyaa in ay tahay qof qunyar socda oo hadda meesha ay danteeda ku jirto raacda waana sababta keentay inay ka agdhawaato mulkiilaha shirkadda Yash Raj Films ee Aditya Chopra markii uu Yash Chopra meesha ka baxay sanadkii 2012 isagoo oo geeriyooday. daawadayaal barnaamijka aynu kaga hadlaynay aktarada caanka ah ee Rani Mukherjee ah marwada u dhaxda Aditya Chopra intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. waxaad ka daawanayseen ama aad ka dheehanayseen saxafi films oo aad ka heli kartaan barnaamijyada ugu dambeeya ee dhacdooyinka ugu xiisaha badan leh oo kaga hadalno aktarada shirkadda Hollywood. daawadayaal haddaba si aad uga mid noqoto asxaabta ku xiran saxafi films waa inaad subscribe tiraahdaa kadibna aad gambaleelka farta ku taabataa si barnaamijka oo si toos ah kuugu soo dhaco markuu hawada soo galo. fikirkaagana waxaad inoogu reebi kartaan qaybta comments-ka ee loogu talagalay faallada ama qormooyinka aad noogu soo gudbisaan. inagoo isku duubana waa Paada Saxafina waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.